daawadayaal halkan waa halka qaraxa uu ka dhacay wadada Makal Mukarrama gaar ahaan ee ka soo horjeedka hotelka Weheliye ee magaalada Muqdisho qaraxa halkan ka dhacay ilaa hadda aan la xaqiijin gaari iyo bajaaj nooca loo adeegsaday balse aha qarax aad u weyn ayaa wasaaradda ammaanka ee xukuumadda Soomaaliya waxay sheegtay inay ku dhinteen inta tirada hadda la hayo dad gaaray ilaa 14 qofood oo marka dhimasho ah waxaana sidoo kale jira dad kale oo qaraxani waxyeelo ay ka soo gaartay oo dhawacyadooda loo qaaday magaalada Muqdisho goobta qaraxu uu ka dhacay ayaa ahayd goob aad u mashquul badan isla markaana dadku ay ku shaaxeeyaan afayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan oo warbaahinta la hadla waxa uu sheegay in baaritaano kadib ay soo sheegi doonaan qaraxa iyo faahfaahinno la xiriira waxaan tacsi u diraynaa guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii Soomaaliyeed ee wax ku noqday weerarkii bahalnimada ahaa ee maleeshiyada al-shabaab ee ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay ka soo horjeedka hotel Weheliye ee magaalada Muqdisho waxaan rabaa si hordhac ahaana waad arkaysaan in ciidamadeennu ay markiiba soo gurmadeen sida laamaha warbaahinta ay gurmadka ugu yimaadaan si ay shacbiga Soomaaliyeed xaqiiqada ugu gudbiyaan waxaan idin xaqiijinayaa tirada dadka Soomaaliyeed ee aan hayno ilaa iyo hadda geeriyootay in ay yihiin 14 ruux halka 6 kalena ay ahaayeen dhaawacyo waxa wali socda baaritaankii waxaan laamaha warbaahinta uga mahad celinaynaa gurmadka ay har iyo habeen shacbiga Soomaaliyeed sidii xaqiiqada jirta ay u gaarsiin lahaayeen sidoo kale waxaan shacbiga Soomaaliyeed ka codsanaynaa waxaad ogtihiin in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dagaal kula jirto burcadda iyo qowliisatada duulaanka ku ah daadinaysana dhiigga shacbiga Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in aad marqaatiye ka tihiin dhalinyarada yaryar ee ku shaqaysanaysay waxa loo yaqaan bajaajka ee maanta ay khasaaruhu ka soo gaareen wixii halkan ka dhacay baaritaan ayaa socda ma hubno dadka Soomaaliyeed ee tiradooda inta geeriyootay laakiin wixii baaritaanka ka soo baxa waxa qarxay waxa ismiidaamin ayuu ahaa Abbas Hussein Muuse telefishinka caalamiga Saab wadada Makal Mukarrama Muqdisho